بسم الله الرحمن الرحيم soo dhawaada waxaan halkan maanta idinku soo gudbinayaa habka loo akhriyo sheekooyinka ingiriiska ee weliba loo fahmo sheekadan aan maanta akhrinayo waxay ku jirtaa buuggan aan hadda wadna casharadiisa ee loo yaqaano 400 essential English words textbook ku jirta weliba unitka koowaad bay ku dhamataa haddaba sheekada qaabka loo akhriyo waa muhiim horta inaad sheekooyinka akhriso si aad luqadaada aad u qaadwayo habka luqadu ay u dhisan tahay qaabka jumladaha loo sameeyo kulli maskaxdaada ayay ku dhismaysaa waayo dhageysiga iyo weliba akhrinta sheekooyinku aad bay qayb muhiim uga qaataan barashada luqadda haddaba sheekada markaad akhriyayso marka hore waxaad sameynaysaa waxaad u akhrisaa jumlad waxaan ka wadaa sentence halka jumla akhri isku day jumladda isla socoto inaad micnaheeda fahanto ayaa la isku dayaa erey waxba ha uga fikirin jumladda fikir haddaad hadda ereyada qayb kamida garan weydo maaragtay waxba ha ka weyn jumladda sideeda maaragtay u akhri micnaheedana si guud uga fikir hadduu lacala erey kugu cusub yahay ereyga hoosta ka xariiq adoo weliba micnihiisa qiyaasaya kadib hadhow dictionary-ga meel kale ka fiirin kartaa markaad ereyga micnihiisa aada heshana mar labaad ayaad jumladda akhrin kartaa haddaba maxaad samaynaysaa qaabka loo akhrinayo waxa weeyaan waxaad tiri tusaalehaan a cruel lion lived in the forest marka libaax naxariis laawaha ayaa kaymaha ku noolaa saasay noqonaysaa nuxurka jumlada qasab maaha marka inaad erey u fasirto laakiin aniga maadaama raba inaad barato erey baan hadda rabaa inaan kugu fasiro a cruel lion libaax naxariis laawaha lived ayaa ku noolaa in the forest kaymaha. Every day he killed and ate a lot of animals. Maalin kasta wuxuu dili jiray cuni jiray xayawaano badan. Every day he killed. Every day maalin kasta he killed wuxuu dili jiray and ate uu cuni jiray a lot of animals xayawaano badan. Ate waa eat bastigeedi. Saa oo la soo killed waa kill bastigeedu eedidaas ayaa ku tusayso inay past form oo wax laga soo tagay. The other animals were afraid of the lion would kill them all. The other animals marka macnaheedu waxa weeye xayawaanada kale oo dhan waxay ka cabsanayeen inuu libaax uu laayo dhammaantood. The other animals were afraid of waxay ka cabsanayeen the lion would kill them inuu dili doono all dhammaantood. The animals told the lion, let's make a deal. If you promise to eat only one animal each day, then one of us will come to you every day. The animals, حيواناتي, told the lion, waxay libaaxi u sheegeen, let's make a deal and heshiis galno. Let's make a deal heshiis aan galno. Fiirada jumladaas oo kale waa phrase aad u qurux badan. Let us make a deal heshiis aan galno. oo heshiiska wuxuu yahay if you promise haddii aad ballan qaado to eat inaad cunto only one animal hal xayawaan oo keliya inaad cunto each day maalin kasta then one of us mid anaga naga mid ah will come to you ayaa ku imaanaya every day maalin kasta. Then you don't have to kuma qasbanid to hunt inaad ugaarsato and kill us and disho. qorshe noocaas ah ayay u soo bandhigeen. The plan sounded well thought out to the lion. The plan qorshihii sounded well qorshaha sounded well mid fiican ayuu u muuqdaa erga sound waxaan kusoo baranay dhawaaq inay tahay laakiin haddana waxaa laga wadaa waxaas wuxuu u muuqdaa haddaan ku dhaho that sound is good waxaas wuxuu u muuqdaa wax fiican that sound is good plan marka wuxuu u muuqdaa the plan sounded well wuxuu u muuqdaa mid fiican thought out waxaa sidaa ku fikiray ama ku falanqeeyey to the lion libaax thought out waxaa la dhahaa ama think out past erga thought waa past
present keeda waa think. Thought out waxa dhinac kasta markuu ka eegay saa u fikiray to the lion libaax. So he agreed wuu ogolaaday marka. So sidaa daraaddeed he agreed wuu ogolaaday. Erga agreed waa agree aan soo baranay past tense. But he also said laakiin wuxuu sidoo kale yidhi if you don't come every day haddiina maalin kasta imaanin. If you don't come haddiina imaanin every day maalin kasta I promise waxaan ballan qaadayaa to kill inaan dilo to kill all of you inaan dhammaantiin idin dilo. To kill all of you inaan dhammaantiin idin dilo the next day maalintaa maalinta xigta. haddaa idin calam aad ii gambisaan maalinta xigta idin gambisaan ayaan dhammaantiin idin laynaya. Each day after that maalin kasta wixii intaa ka dambeeyey one animal hal xayawaan ayaa went to the lion libaaxa aadi jiray so that the lion could eat it uu cuno. yani hal xayawaan ayaa aadi jiray. xayawaankaana dee dalxiis uma socdee in la cuno ayuu u socdaa. Then all other animals kadib markuu xayawaanka halka xayawaan la cuno all the other animals xayawaanada kale oo dhan waa safe. waxay ahayn kuwo markaa safe yani kuwa ammaana ama badqabo. sababta oo maalintan hal xayawaan buu libaaxi cunay libaaxi ma soo baxay marka kuwa safe oo ammaan helay ayay noqon jireen. kuwa safe kuwa ammaan helay bay noqon jireen. kadib maxaa dhacay finally ugu dambeyntii it was the rabbit's turn. waxaa la soo gaaray tookadii bakaylaha. rabbit's turn waa tooko yani wax marka lagu tookaysanayo ama kal laba dhaho kaltankii ama tookadii ayaa la soo gaaray libaaxa bakaylaha to go to the lion soo u aaday libaax. yani maalintaa bakayla ayaa ku qornaa inuu libaaxa u tago oo cuno. bacdi bakaylihi muxuu sameeyey the rabbit went very slowly that day. the rabbit bakaylihii went very slowly wuu baxay si aayara. go bastigeeda went wuu tagay ama wuu baxay very slowly si aayara oo gaabisa tartiib buu u socday that day maalintaa. wuu sii fikiraya qorshuu sii dejinay. so sidaa daraaddeed the lion was angry libaaxi wuu xanaaqay when the rabbit markii bakaylihii finally arrived ugu dambeyntii u yimid. when the rabbit finally arrived markuu bakaylihii ugu dambeyntii u yimid libaaxi wuu xanaaqay. the lion angrily asked si carada ayuu wuxuu u weydiiyey the rabbit bakaylihii why are you late maxaad u soo daaday. why are you late maxaad u soo daaday. hadda fiir marka erga angry xanaaqsan bay adjective ahayd laakiin angrily si cara leh waa adverb. saas marka ku kala duwan yihiin. the lion angrily asked si carada wuxuu u weydiiyey the rabbit bakaylihii why are you late maxaad u soo daaday. I was hiding from waxaan iska qarinayay another lion libaax kale. I was hiding from another lion libaax kale ayaan iska qarinayay in the forest oo kaymaha soo gala. in the forest oo kaymaha soo gala. sida caadiga ah libaax kasta aag buu leeyahay marka libaax kale ayaa aaga soo galay. that lion libaaxa kale ee soo galootigaa wuu ka wadaya. said wuxuu yidhi he was the king inuu isagu boqorba ka yahay kaymaha. so I was afraid waana cabsaday. the lion libaaxa dee meesha sii joogay maalin kasta xayawaanada u tagi jireen told the rabbit ayaa bakaylihi wuxuu sheegay I am only the king. I am the only king. I am the only king here. aniga oo keliya ayaa halkan boqorka. I am the only king here. aniga oo keliya ayaa halkan boqorka ah. take me igee weydi to that other lion libaaxa kale igee and I will kill him. waan dilaya. libaaxyadu badanaa mid kasta area iyo territory buu leeyahay ku kala kuma soo xadgudbo. waxayna badanaa ku calaamadayaan xuduudooda kaadi bay ku soo wareejiyaan. the rabbit replied rabbitka wuxuu ku jawaabay ama bakayli wuxuu ku jawaabay I will be happy waan ku farxayaa
to show you inaan ku tuso where he lives meesha uu ku nool yahay libaaxa kale. The rabbit bakaylihii led the lion wuxuu libaaxi u hogaamiyey to an old well ceel duuga old waa duug well waa ceel maanta erayga ceel baa laga hadda ceel waa ceelasha biyaha ku jira maragooda waad garanaysaa weel fiican ama si fiican loo qabtay ayaan kusoo baranay laakiin maanta waa ceel marka erayada badan macnaha marmar way isbedelaan. The rabbit led wuxuu u hogaamiyey ledna waa lead basket erayga lead basket si waa the rabbit led wuxuu u hogaamiyey the lion libaaxa ama u horkacay to an old well ceel mataqaanaa duug ama ceel duq ama ceel hore ah in the middle of the forest ee ku yaalay bartamaha kaymaha in the middle of the forest ee ku yaalay bartamaha kaymaha. The well was very deep ceelkaasi aad buu hoos ugu qodnaa. The well was very deep ceelkaas aad buu hoos ugu qodnaa with water biyo ayaana ku jira at the bottom salkiisana biyo ayaa ku jira ceelka hoos ugu qodnaa biyo ku jira. The rabbit bakaylihii told the lion wuxuu libaaxi u sheegay look in there fiiri halkaas. The lion lives bakaylihii wuxuu ku nool yahay at the bottom meesha salkeeda ayuu ku nool yahay. wuxuu yidhi look in there here. The rabbit bakaylihii told the lion libaaxi wuxuu yidhi look in there halkaas fiiri look in there halkaas fiiri. The lion libaaxa lives wuxuu ku nool yahay at the bottom ceelka salkiisa. kadib maxaa dhacay when the lion looked markuu libaaxi fiiriyey in the well ceelkii dhexdiisa markuu fiiriyey he could see wuxuu arki karay oo u arkay his own face isaga wejigiisa in the water biyihii buu wejigiisa ka dhex arkay. He thought wuxuu u maleeyey think bastigeeda wey he thought wuxuu u maleeyey that was the other lion inuu waxaas yahay libaaxi kale wejigiisa uu biyaha ka dhex arkay buu libaax kale u maleeyey. Without waiting asagooba suginba another moment ilbiriqsi kale asagooba suginba the lion jumped libaaxi wuxuu ku booday into the well ceelkii buu ku booday to attack so uu weeraro the other lion libaaxi kale. He never came out weligiisba ma soo bixin ceelkii buu ku dhex dhaco halkii buu ku dhintay. All of the other animals xayawaanadii kale oo dhan in the forest ee kaymaha ku jiray were very pleased aad bay u farxeen with the rabbit's clever trick khiyaanadii caqliga badnayd ee bakaylaha. fiiri rabbit's clever caqliga waa kusoo baday trickna waa khiyaano. marka waxaad arkaysaa sheekadan waxaa la soo geliyey erayadii aan kusoo baranay unit 1. aad iyo aad baad umahadsantihiin sheekooyinka waa ina akhrisaan. waxaan samayn doonaa insha allahu tacaala mar kasta waxaan soo geli doonaa sheekooyinka gaban sidoo kale waxaan telegram groupka idiin soo dhigi doonaa buugag aad soo akhrisaan book reading challenge wax laan qaban doonaa buugag baad soo akhri doontaan qof kasta buug baa loo dirayaa ama buug baa soo dhigaya buuggaas maalmo kooban ayaa kusoo dhamee lagu leeyahay sidaasaad marka luuqadaada ku dhisaysa. aad iyo aad baad umahadsantihiin fadlan channelka haddaada subscribe horey u dhihin subscribe saar like-na saar waad mahadsan tahay sida aad u faa'iidaysanaysa inaad ugu xiran tahay ilaahay guul iyo barwaaqo